السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيها الناس عليكم بذكر الله فإنه دواء، وإياكم وذكر المخلوق فإنه داء. الحمد لله. إلهي بان كو حمدنا ولا ليال أبين جمعة أو بركيسن مساجد كاس إلهي تبارك وتعالى وليه عبادة إلهي اللورد سي الله نقول كل سيء بمحله. runtii جزاكم الله خيرا. علماء وين لا joogtaa khiyaarteennii akaabiirteennii culimmadeennii, laakiin anaku waxaan u imanay keliya ama nii soo ziyaaranay in aan isbaraarujinno الموعظة تذكرة للعالم وتعليم للجاهل بالليل. الموعظة هذا مالي أي كدعوة وانا يا نصيحه. عالم كان وحي نقونيسا تذكره وعلمي يسيب الله حسوسنا يا جاهل كان وحي نقونيسا دين برشة نقونيسا يو علم كم مغناب وكم فايدة سنة يا مجلس كاس. إنكنا وحنا هيبة إنسان معناه يقول أكيد لو شهبنا إنسان بني آدم بشر. إنسان كاسي مر والبا وحو باحan yahay in la xasuusiyo oo la baraarujiyo. oo quraanka dhan baa Ilaahay ku sheegay inuu yahay xasuusin, in huwa illa dhikrun lil alamin. nabigeena Muhammad alayhi salatu wassalam ayaa Ilaahay ku sheegay inuu yahay mudhakkir, xasuusiye. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. maxaa bani aadanka marka la xasuusinaya? bani aadankan waxa la xasuusinaya ballankii ay horay u galeen ee ahaa inay alla keligii ay caabudayaan. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. آدم عليه السلام مركي آبهن لأبوري أرلاد الله صودا دعيي جبل النعمان هلك عرفات أي كتالو هلك النبي آدم عليه السلام وكسوغا أيا إلهي جل وعلا ظهرك النبي آدم أيا إلهي كسوق بتي أرواح ذا أولاد ديسا مركاسا هورتيسا لغو شيريي بوري النبي عليه الصلاة والسلام مركاسا إلهي بلا نوحو كقادي arwaaxda basharka oo dhan oo hal qof uunan ka maqnin ruuxdiisu in uu yahay Allahu Rabbul Alamin, rabbiga macbuudka ee cibaadada mutaystay inuu yahay buu ballan Ilaahay ka qaaday. una qirsiya Ilaahay fa ashhadahum ala anfusihim. markaasa Ilaahay ku yiri anu rabbigii in uumay ee in arsaaqayay ee iska kiin lahaa miyaanan ahayn? qaaluu balaa bay dhaadeen kulligood. ballankaasa bini aadamku ay soo galeen in Ilaahay jalla wa ala keligii ay caabudayaan, oo keligii ay adeecayaan, oo keligii ay baryayaan, oo keligii ay isku dhuldhigayaan, oo keligii ay baahidooda u sheeganayaan. ballankaasi bini aadamku way soo galeen.
laakiin arladan markay yimaadeen basharkii bini aadamkii arlada ay yimaadeen qof walba mujtamacii iyo bii'adii uu ku barbaaray ayaa saamayso bedeshay kullu mawluudin yuladu cala alfitra fa ima abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi ilmo kasta oo dhasha buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam fitrada islaamka ayuu ku dhalanayaa ama labadiisa waaliduunbaa xagga yahuudiyadda u qaadayo yahuudi ka dhigaya ama labadiisa waaliduunbaa nasraani ka dhigaya ama labadiisa waaliduunbaa majuusi ka dhigaya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam ilmaha yar kolba mujtamaca uu ku dhex barbaaro sida ay yihiin buu markaa ilmuhu uu noqonayaa ama qof kastoo adduunka yimiday wuxuu dhalanayaa isagoo qaba fitradii saliimka ahayd ee ahayd fitrat allaahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illaah dalika addiinu alqayim fitraddii toosneed ee ahayd inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu keligii uu yahay macbuud kala baryo ee la weyneeyo inuu asaga yahay fitradda iyagoo qalbigooga ay ku jirto ayay bini aadamku adduunkan ay yimaadeen laakiin kolba mujtamaca qofka uu ku dhex barbaaro ayaa marka qofka bini aadamka saameyn iyo raad ku yeelanaya kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun marka bini aadamkii ballankii ilaahay uu la soo galay arladan markay yimaadeen badanaa ballankii way iloobeen way halmaameen raxmatan minhu jalla wacalaa ilaahay isagoo bini aadamka u naxariisanaya oo mar walba addoomihiisa khayr u khayr miraya oo jecel ayaa ilaahay jalla wacalaa wuxuu u soo dejiyey kutub waxauna u soo diray maaragtane ergo 100 iyo intaasoo kun oo nebi oo 312 rusul ay ahayd iyo intaasoo suxuf iyo intaasoo kutub oo shareecada oo ilaahay jalla wacalaa bini aadamka uu samada uga keenay ayaa ilaahay bini aadamkan u soo diray si bal bini aadamkan ballankii ilaahay ay la galeen aynan u halmaamin mar walba u xasuustaan oo quraankii aayaadka ilaahay lagu gartabay culimadu yiraahdeen waa laba aayadood midna waa midan inala hadlayso waa quraankii midna waa midan maaragtaane aan arkayno aayaatullaahi almanduur iyo aayaatullaahi almantuuq aayaadkan mantuuqa waa quraankan weeyaan haddaad quraanka u fiirsato 80% quraanku wuxuu bayaaminayaa ilaahay cadamadiisa iyo nolosha dambe ee weyniga badan buu quraanku ka warramayaa juz'amo oo kaliya 19 meelood baan u malaynayaa inay tahay ilaahay inuu ku sheegay inuu cirkiga dhulka isagu abuurtay hal mar oo kaliya hadduu sheegan lahaa way ku filan tahay xujo cid ilaahay ku haysatana ma jirto laakiin limaada allah azza wa jalla muxuu ugu celcelinayaa uu leeyahay cirkiga dhulka aniga abuuray waxaa laga dhaadhicinayaa tawxiid ilaahay horta garo ilaahay macrifo ilaahay dhaba u garo haddaad ilaahay garata marka inaad adeecdaa ku dhib yaraan marka bini aadamkan muhiimadda ugu weyn adduunka loo keeno waa inay ilaahay aynan iloobin waxaan adduunka aad arkayso oo dhan waa ikhtibaar adaa lagugu eegayaa nin saalixiinta ka mid ah inankiisa markuu la dardaarmayo wuxuu ku lahaa laba weligaa ha iloobin buu ka yidhi labana weligaa ha xasuusan lacalahu luqmaan alxakiim inuu ahaa marartu bikathiirin min alambiyaa buuhi nebiye fara badan ayaan suxbad la soo yeeshay majaalistoodii 8 mas'alo ayaan ka soo faa'iidaystay buuhi ee iga bara inankaygiyow haddaad salaada aad tukanaysana qalbigaaga ilaali dad haddaad la fadhidana carabkaaga ilaali cunto haddaad cunaysana calooshaada ilaali aqal dad haddaad gashana indhahaaga ilaali buu ku yidhi haddaad salaad tukanaysid qalbigaaga ilaali oo qalbigaagu yuunan meel kale u jeesane qalbigaagu salaada dhexdeeda ha ku mashquulo allah caza wajal allahaad hor joogto qalbigaaga ku mashquuli dad haddaad la fadhidana wuxuu ku yidhi carabkaaga ilaalso aqal dad haddaad gashana indhahaaga ilaalso cunto haddaad cunaysana maaragtaane calooshaada ilaalso labana weligaa ha iloobin buu ka yidhi labana ha xasuusan labada uu ku yidhi ha xasuusan waa labadee dadka wanaagga aad u samaysid weligaa ha xasuusan buu ku yidhi dhibaatada adiga ay kuu geystaan ha xasuusan buu ka yidhi اثنان لا تنساهما واثنان لا تذكرهما buu ka yidhi laba weligaa ha xasuusan haba hadal qaadinba إحسانك إلى الناس وإساءتهم إليك wanaagga dadka aad u samaynaysid
ولقاها حسوسا هداد ومدى أدوناقو سمينيسد إلهي درتي أقو سمي هداد علمي بريسد إلهي درتي أبر هداد إحسان سمينيسد إلهي درتي أقو سمي هداد شفاعات قاديسد إلهي درتي أقو شفاعات قاد هداد واحد ديمينيسد إلهي درتي أقو ديمي واحد دادك أقبانيسي وناقا ماركا وحريس وانا دو قبتا الله درتي dhibaatada dadku ay kugu sameeyaan waliga xasuusan buu ka iska ilow waxaad ahaataa saliimu sadri qof qalbigiisu mar walba uu yahay nadiif dadka ihsaanka aad u sameynaysid hadaad mar walba aad dadka ka sugta inay abaal ku celiyaan waxaad noqonaysaa inaad waxaad halis u tahay inaad ku dhacdo mannaan galad sheegtay inaad noqotaad halis u tahay galad sheegtana waayo هو إلهي صدح واكي نبي قولها عليه الصلاة والسلام إلهي مالك قيامها صدح لحظ مايو حقوقنا إلهي دايمون مايو ذنبنا إلهي كرداف مايو عذاب كل الأضرنا وإليهين صدح جرب نبي قول إريدا كعليي أبو ذر الغفاري أيايري خابوا وخسروا منهم يا رسول الله ويهوغين وين خسارين كواسي أييه نبي الله نوشك مرقاب النبي قول المنان وكذلك قلت شيكت أبو رسولك يري قلت شيكت qofka mar walba dadka yiraahdo waxaan ku sameeyay anigu haban ku qabtay ana magaalada ku soo galiyay fabisa kula ya dadka la mid buu kula ana qof ka dhigay kan ma adarkii buu yiraahdo dadka ana qof ka dhigay buu oo marka hore ma dameer buu amsa daayeer yani kalaam hadal yar oo basiida qofka si dhib yar uga soo baxaya khatarna uu ku galaya qof أنا سميي أنا وحكار دقي أنا ضدك كوكو دري هذا أنا جرين ما بجرتين ماي وأنا ضحاتا مركو أهر السبع هذا مدة وحقوق بنا سلاح درت وحقوق أبو لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إخلاصك وعجيب الله ينسي إخلاصك من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه حديث القدس إلهي وكيلها من عمل عملا قفك عمل سمايا أدونك دوشيدا عمل كاسو سمايينا أنيق عدك يقول لريبا إلهي إيه شريك يلي عمل كيسا إيه شرك كيسا قيامها وأنوغتك أبا إلهي صدح هذا قفة أوقوه الرئيسة والنبي قول شيء صلى الله عليه وسلم إن النار تلقوا توري دوننا وصدح ذي وعالم وتاجر صخيئها هي نن مجاهدة هاي والله ملين ينو دينو دنتي صدح عمل هو وين بين الله إيمانيان كانوا مجاهد بوها كانوا وحوها عالم بوها ومضوا علم جبر يقاربوها كانوا وحوها ما ركتان السخيم مالقبين أيها هاي حوله سوء بحجري صدح ده عمل اللي مادن إلهي هرتي صدح ده عمل بوحة كلنا ما ركتان الشرك بكلنا لأن مركز إلهي أرنا يا هذا دمتي واد صور دمتي لكن أنا قدرت وما صور دمنه إن لقاير هذا هبل وانين دقاليها أياد صور دمتي وانا اللي أذكرنا قارب هذا هاي القرآن أخرس في عن أما واعد ومدى وعدي أياد هاي وضدك أي هذا الجسد جيستام وعدك مركز جديد يسد ومدى وحوش يجسام ما وحبر يسدنا أنا قدرت أمات بريني هبل وانين عين كاسو ومدى وحوش يجو عرب فصيح يا لقول يا هل لقول إذا هذا إصلاحيد كان وحال أورنا يا أذكر أن المال كبحياد هيدا مال كستو خير حولها وتكون بحنيسي هذه مساجد هاي هذه مدارس هاي هذه أيتام هاي لكن واحد بحنيسي وهي بالوسخي هل لقول هذا سدح دي الناس واللي نيجي يدون كدوش يدي أكتر إذا واحد كل هذه هو نار تكتور الله ورندونا حديث أبا هريرة رضي الله عنه مركو شيء جري وأوي جري وكعي جري ودعي جري ولا كعين جري وأوي جري وكعي جري markay naftu ay ka bixi inay ka baxdo halis u gaadho ayuu xadiidka nabiga ka maqlay uu sheegi jiray lillahi wa inuu hada qofka muslimku waxa dadka u qaban ilaahay dartii ugu qabo waa inaad ku doontaa amalkaaga aakhiro amalkaaga adduunyada ha ku doonin Abdullah ibn Mubarak rahmatullahi alayhi ayaa lagu yiri manin naas dadi ayayhi noo sheeg markaasuu al ulama dad hadii weydiiseen dad waxa weeyaan وعلماء وادتك إلهي علمك سيقانا وادتك إلهي يقانا آخرة يقانا شريعة الإسلام كيقانا دتك أصوم بعددا مركز اللي فمن الملوك كوا هدي عددك الشيكتي هذا بقردنا أيهين مركز يود الزهاد
وادتك الزاهدين الدنيا كالزاهدي الدنيا بدبركيغا waxa dul yaala waxba aanan u arkayni markaas lagu yiri ma tawaaduc ana balnoo sheeg tawaaduc muxuu yahay markaas lagu yiri at-takabbur ala al-aghniya dadka hantiilayaasha oo agtaada aan waxba aanan u waxba aad u arkin oo agtaada qiimo aanan ku yeelan taas tawaaduc la yiraahdaa buu ku yiri markaas lagu yiri faman as-sufaha dadka sufahaduna ay yihiin man gaabka aqliga aan lahayn wuxuu alladhi yaakulu diina bid-dunya wa qofka magac diineed xambaarsan laakiin magaca diineed haddana dadka adduunka kaga doonay wajigiisa diineed adduunyada uu isticmaalaya kaasa safiha buu yiri فنحسن دتك هدان وحو قبنينو هدان وحو شيغينو هدان وحبرينو هدان إحسانو سمعينو هدان انفاقينينو waxay naga noqonaysaa waa ilaahay dartii waxa kale uu ku yiri ninkaas inankiisa markuu la dardaarmayay dhibaatada dadku ay adiga kugu sameeyaana ha xasuusan buu ka yiri waxaad noqotaa qof saliim sadri qalbi fiican noqo qalbigaaga waa inuu ahaada nadiif muuminka qalbigiisu غل يا حسد يا بغض وعينه كهذا صليم وكي النبي لها حديث في السنن نن أهل الجنة إنه صوبح دونا نسحابة كمدا صوغلو سووا يسيستي صحابة ننكي بي فيريين هذانا مالين لبعض والنبي يقول نن أهل الجنة إنه صوغلي دونا إسلام ننكي با صوغلي هذانا مالين صدحات والنبي يقول نن أهل الجنة إنه صوغلي دونا إسلام ننكي با صوغلي عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما ayaa intuu socday buu ninkii marti u noqday wuxuu yiri aabahay baan isa soo diinay in marti qaad markaasoo marti qaaday aabihiina ismay soo diideen wuxuu rabay kaliya inuu arko bal ninkani acmaasha uu ku mutaystay inuu noqdo ahlal janna ha soo aragtid buu ku yiri ha soo aragtid buu islaha iyagu khayrkay ku kala dayanayeen khayrkay u kala badinayeen khayrkay iskaga dayanayeen inagu laakiin maanta maxaan ku kala dayanaa naga zamankeena dadkii adduunyo u tartamayaan adduunyo u kala badinayaan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ayaa lagu yiri sif lana dunya adduunyada Ali oo bal noo sifee markaas uu ku yiri ma asifuha maxaan igu safeeya awwaluha ana wa aakhiruha fana wa halaluha hisab wa haramuha adab kayri xan adduunyada ka sheegaa buu yiri awwalkaygu waa ana wa ta'ab ودال بدتك ما أنت أدوية جوجا إيجا قف والبا ودالن يحي إنن كي بدالن وأبيه بدالن وفقير كي بدالن ومالقبين كي بدالن ومدحذي بدالن وشعوبتي بدالن وهوي بدالن وإننتي بدالن وجامعي كي بدالن وكي مالك هيستاد دالن وكي فقير كها بدالن كي ميجا جوجا دالن كي ديار ذا وذي بدالن أولها عناب علي بن أبي طالب أدوية هذا دي ويديسين أول كي هو الدال وتعب ودال ما بنصنع سامبا ورما لا نستع ما نصنع شيء وآخرها فناء حكدم بي رماد أما أذيك لمن أما أدوية كهر دقاقي حلالها حساب تيدا حلال كوكو سوق شن حسابك كدم بيسا وحرامها عقاب تيدا حرام كوكو سوق شيء والعياذ بالله هنا وعقوبة الدنيا تدوش يدي آخر والله كوكو عقاب حرام تيدا من استغني فيها فتن ومن افتقر فيها حزن بيودي الدون كدوش يدي نيك إلى هاي هنتي أوصينا هنتي دا وكفد نوبي حساب يدال يالرفاض يعريري يولول يوالبهار يسترس يولا هو مكجري كأدوية أنا هاي سنة فقير كالنقدين مروق ومكجري سقونا مروق من حساب تيدي بعد ضو خصي من ولول كيجيبها هيو هالكان كهل هذا أبو هيا تصدق معي الدون كيس كم يدين أصحاب النبي يقول آخرة يترتميين جنة يؤكل بدينيين وفي ذلك فليتنافسه المتنافسون ما دام النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصدح مع الموضوع السكوحي تؤيري نن أهل الجنة الناس وقال دونا عبد الله بن عمر وحو رادنا يا ننكني وحو كمتي سجنة ما السبب صدح بين مركو مرتوها وح أعماله الزيادة وانت يكو باي قبنيين دافسن مركو كوايي ayuu yiri aabahayna ismaan soo diidine saddex maalmood uu nabigu yiri hal janna inagu soo bixi doona
adigaana noo soo galee camalka aad ahla jannaha ku noqotay ee maqaamka aad ku mutaysatay baan rabay inaan kaa arkee wax acmaal oo dheeraad oo annakaadna dheer tahayna ma arka buu ku yidhi salaadiina waa 5 waqti baa tukataa saacadaha dambana witridaad u kacdaa habeenkiina cibaado badan kaama muuqato salaata leelkaagu ma badno munaajaadkaagu ma badno quraan akhriskaagu ma badno markaas yidhi huwa ma ra'ayta buuri inta aad khayrka aad igu aragtay baa anigu aan sameeyay wax kale ma sameeyay buu ku yidhi markuu ka sii jeestay buu u yeedhay kaalay mid baa jirtay buu adiga ka qarsoon oo aanad ogeyn waa maxay habeenkii ma seexdo ilaa waxaan seexdaa anoo dadka muslimiinta iska cafiyaan seexdaa buu qofna calool xumo calooshaan ugu hayn salaamatu sadri saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim ajmaciin cibaadadoodu ma badnayn salaadooda soonkoogu ma badnayn laakiin qalbigoogaa fiicnaa iyaka salafku waxay odhan jireen abi bakr sidiiq radiyallaahu canhu saxaabada rasuulka iyo ummadda nebi maxamed sooniya salaad maaha wuxuu ku dhaafee bishayin waqara fii qalbihi nuur qalbigiisa ku dhibcay ayuu abubakar ummadda ku dhaafay qulubtooda ahayd qulub nadiifa marka dhibaatada dadku ay kugu sameeyaan ha xasuusan iska saamax iska cafi qazawaadkii nabigeena sallallahu alayhi wasallam qazwad kamida ayaa markuu nabigu qanaa'imtii u qaybiyay saxaabada nin ayaa yiri marka qismadan la qaybiyay lagumana cadaalad falin ilaahay dartina loogama jeedo buu yiri hadalka ayaa lagu leeyahay nabiyullaahi muhammad alayhi salaatu wasalaam wal fiirsada nabiga sa'atu sadrihi qalbigiisa balladkiisa eeg iyo baaciisa عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أي هذا الكلام مغلي ورمحاتري قسمة لا قيبيي حولها سدن لو قيبيي لقمنا عدالة فلن وعدالة لقما قيبين إلهي وجهك سنة لقما جيد بيولي هذا الكلام ورمين تقول لك يا دنبي ابن مسعود رضي الله عنه والله إن مقرنا النبي قالوا شيء بيولي مرقاب النبي قالوا شيء عليه الصلاة والسلام نبي وجهك سيبا بدل مي مرقاب النبي صلى الله عليه وسلم وحيري إن لم يعدل الله ورسوله فمن يعدل النبي يري إلهي رسولك هذه عدالة يكون سميني وآيان وعدالة حقوق كإيماني ويدو أياك لو عدالة سمين رسولك يري أرجع مرقو النبي يري أيود ولالك موسى عليه السلام أنت إنك بدن بالدبيا أو صبر برسولك يري يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ولكن موسى عليه السلام انت إنك بدن بيقوم جيسو أي دبيان أو صبري أنا قلنا وصبر يا أبو رسولك لمركز سلامة الصدر لبدا ولغا وحكوده حسوسا لبنا هاي لوبن إلهي هاي لوبن دارت آخرا هاي لوبن بوكيدي الله والدار الآخرة الله وكيكو أبوريكو جرسيي دارت آخرنا ودارت كل جنوة النقند حق ذويان الله وكيكو أبوري محكو أبوري معرفة سؤال هاي كو أبورتي عبادة سائلة هاي كو أبورتي آخرتنا ودارت أضامها إلى هاي وكسو جيو أضامها لقو حسابي دون ويان إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا إلهي قرآنك كغورما يا أوليحي إن يوم الفصل كان ميقاتا مال انت بنا آذن كالله كل السين دونو الرب قود إلا كل مدونان ومال انت ويوم الفصل ومال انت لك لصاري دونو ويان كيف عنائك يحمابا لك لصاري مؤمنك يا منافق لك لصاري أهل الجنة أهل النار لك لصاري كي وناك سنايا كي حمابا لك لصاري يوم المصي يوم القيامة لبدا ولغا هاي لوبن بوكوري لبدا ولغا هاي لوبن الله يكو أبوري هاي لوبن مر والبحصوص نو وقلبك إلهي كو هاي هداد مهرد هذا جوكت إلهي حصوص نو هداد أقل كاقا جوكت إلهي حصوص نو
haddaad maskiidka joogto ilaahay xasuusnow haddaad cirka joogto ilaahay xasuusnow haddaad dhulka joogto ilaahay xasuusnow weligaa ilaahay hayloobin laana ilaahay adaa u baahan qalbigaaga inuu ilaahay ka bixin ducadii nabigeena sallallahu alayhi wasallam ugu badnayd uu ku ducaysanayay maxay ahayd yaa muqallib alqulub thabbit qalbi ala diinik qulubtuna waxay ku jirtaa buu nabigu yiri ilaahay tabaaraka wa taala asaabicdiisa laba usbuuc oo kamid ay ku jirtaa buu nabigu yiri yuqallibuha kayfa yasha sidoo doona ilaahay u qalliba sidoo doono yuqallib marka nabigeena ku ducaysanayo laha ilaaha qulubta bini aadanka gagadinayo qalbigayga ilaahu daacadaada ku sug ilaahu qalbiga macrifada ii fadhiisi fala nansa ilaahay nama iloobin isagoo isaan ku iloobayna inaku kuma iloobayo khalaqaka fasawaka uku abuuray uku jirsiiyey asbaqa calayka nicamahu daahiratan wa baatinah ilaahay nicamtiisii waa ka ku hubiyey teeda muuqatay taanan muuqanba amnigii baa ilaahay ku siiyey amniga ya amnigayna siiyey ilaahay man asbaxa minkum آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها قفك واقو وبريستي بو نبي يقول يسقو نبض قبع يجركي سيئو بض قبع قوت اليوم كينا مالنتا وحعون يينا هايستبو نبي يقول نعمة دي أدوية تالله دنوال لسيئب رسولك يقول واقي باكو بريي دادكاقي أذيقي ونبض قبع أمنك والنعمة إلهي نسي إلهي كم هذية أمنك هلا إلى اليوم نعمة إلهي وبحيا نعمة أقوين وإصلان لماذا نعمة الله بعضنا علماء وحيدة وعافماتك نعمة صدح هذا هدين لا شيئا ونبت قليدا رب اجعل هذا البلد آمنا أمنك وقالي ويان إبراهيم بكدو عايزتي أمنك بشو مركي بلاتو نبيك كدو عايزتو يري اللهم أهل باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله اللهم أهل علينا باليمن والإيمان بشي بلا نيسا وحاصلنا إن تكدو عايزتي بشاسين بركة كولا دلتا بركة إينا بدقليو إن أمن لدلتو إن أرزاقات بركة لكولا دلتو إن إسلام ماذا إلهي كوسوغو إن بدقمنا إلهي كوسيو نبي الله إبراهيم عليه السلام وحو كدو عيسنا لبا شيبو إنما دي سو كدو عيي ماركو بيتك إلهي وكدو عيني لبا دا محي هيد إن إلهي الدرية دي سشركك إلهي وكا إلهي أمن إلهي أوصيو وتوحيدك وعسر عيي النبت قليدي وهي هدان نبت لحيسن سيدا المساجد الله عمر مايو سيدا الله سو شغتك مايو مركا أمنك إلهي باهيا عافماتك إلهي باهيا أرزاقات إلهي باهيا وحد هذيك حيسة إلهي باكوسيي وحكام مقن إلهي باكوهيا فنسأل من الله إلهي وحول بها ويدي سنو إلهي وحيي حشود بدنه أدونك أدو قعمها كرو قادو إلى إله وحا إسي إنه الفرمرني إلهي كسو عشو وكحشو دابو النبي يقول عليه الصلاة والسلام فلا ننسى بدل ما أنت إلهي وإلو بين قار زمنك يراعين زمنك قار ماددي باقادتي قار شهوات كي باقاتي يا كسوري دي مركا يا ونستحين يا ودمقن إلهي مرول بحسوسنو ذات كان إلهي حسوسي آخرة حسوسنو
dadka aakhirada ugu yeedh mar walba labada qalbigeenna hadday ku weynaato macsiyadu way yaraan oo taacadda ayaa badan qofku hadduu mar walba ilaahay xasuusan yahay uu aakhirada xasuusan yahay bay culimmadu yidhaahdeen saddex sifa ilaahay siiya tacjiil atawba qofka mar walba ilaahay xasuusan inuu dhimanayana xasuusan baa la yidhi qofkaasi toobadda waa u degdegaa toobadda dib u dhigi maayo wuu degdegi sifada labaad ee ilaahay uu siiyey ma taqaanaa qofkaas qanaacatun fi lqalbi arsaaqadda iyo adduunyadana inta ilaahay uu qadaray ayuu qofkaasi raalli ku noqdaa تصدحاتنا بقى اللي يريه النشاط في العبادة طاعة إلهي بقفك سوج جبنانا يا إن الصلاة كود بيراتو وصونك كود بيرادو وقرآن أخرسك كود بيرادو وفردك مسكتك كو معانادو ودين تبرشده كود بيراتو وعمل فلك الدين تكو معاناتو وحكينا يا وهدي قلبي يا مرول بإلهي أتكو هيسد آخرته لا يكون هرتالو لبدا سي هدي قلبي يكو يراتنا لبا صدح عقوبة قف كود على صدح عقوبة كوباد waxa weeyaan baa la yiri toobadu ayuu dib u dhigtaa hore uu toobad keenay maayo illa waa dhimanaysa ismale wuxuu isleeyahay waa noolaanaysa buu isleeyahay qanaaca ma yeelanayo qalbigiisu qanaaca ma yeelanayo waxa adduunka maal yaalo oo dhan sidoo ku heli lahaa ayuu habeen iyo maalin ka shaqayn man helayo halka كقلبيس آخرته كوين تهي عبادتي طاعته ودب يرانا سنة كان وحى كل عيسى الكسل في العبادة عبادتي إلهي ما كنا قناس عليس مقداد صحابي قال أورنجر رضي الله عنه أيها هبينك مركو جيب سنة أيو وعلي أوقل قلنجر أساس أوقل قلنجر سيدا دريقة مركب بيها الله صاروا يدبكو كل زيادة بيهو كرسمان سيدا بيهو أسكو لبا قديان أيها هبينك أوقل قلنجر سداس مركب حاسكي سكو أورنجر تي محل لقل قلان إسامات سيحتي دا مركب كو أورنجر عبسدا النار تا أنكقبو أيها هبينك وردد إيقا قادب أورنجرين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وكوي الصحابة كوي رشبتا نبي الله عرضي باكو بدت بريهن محاجرة مرقاب نبي يقول شيبتني هود وأخواتها سورة هود يا ولا لهد بعرضي قصو صاري برسولك يدي سورة هود وأخواتها عما يتساءلون إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت سورة ذها قيامها كور رمايا أيها النبي محمد عرضة كسو صاري سورة هود مركي الله بارينا آيات النبي محمد عرضة كسو صارتي وحي علماء كل شيئين فاستقم كما أمرت ومن تاب معك فاستقم كما أمرت waxaad ku toosnaataa sidii ilaahay uu ku amray adiga hawaa عن istiqaamada markay culimadu ka hadleen waxay yiraahdeen waa laba buurood oo afiiqan dushooda u la dhigay oo la yiri qof bini aadana halka dulmar sidoo u soconaya sidoo socon degdeg u socon maayo cabsi buu ku maraya halka cabsi فاستقم كما أمرت سيدي الله أمرك توصنو حق إلهي إلالي حقوق بني آدم كقوليهين إلالي مالك قيامة وحاتم عدا هذا بني آدم وحبك كقول شيئين آخرها حدات ماذا هذا وحلقوها يستو فاكي النبي يقول لها أتدرون من المفلس قفك عيدا مياتقانان صحابة وحيد هذا عيد وحنون قانا أنكو قفك الدينار يدرهم يمتاع وحبا أنا هيسن مرقاب النبي يقول قفك عيد واكي وبنك قيامه الله من دونا صلاة يصون يزكي يحجب الله من دونا لكن دad fara badan ba halka hor joogsan doona dadkaas isagay wax ku sheeganayaan mid waxa uu leeyahay aniga ninkan waa idilay mid wuxuu leeyahay aniga waxaan ahayn buu igu sheegay mid waxa uu leeyahay xoolahaygay buu iga dhacay mid wuxuu iga leeyahay dhiig buu iga daadiyay markaas la oranayaa waxa li wuxuu ajar iyo khayr soo shaqaystay ka soo qaado ayaka siiyo janno ku galiya markaa baa la oranayaa waliba dad kala hadhay oo adoonka ma aragtaan ku sheeganaya xaq
markaasaa ilaahay odhan doonaa dunuubta iyaku ay soo shaqaysteen ka soo qaado isaga madaxa u saara dadna naarta ku tuura walciyaadu billaah muflis qofka caydhu waa kaas khayrkuu soo shaqaystayna dad kale ayaa jannada ku aado jannada ku galay dembi dad kale ay soo shaqaysteenna isaga ayaa intoo madaxa loo saaray naarta lagu tuuray marka istiqaamadu waa maxay walaalayaal waa inaad ku xisaabtantaa mar walba adduunyada waxaad ka baxdaa adoo aan waxba lagugu sheegin wayna adag tahay ma arrinkaasi laakiin waa inaan toobad keenaa mar walba toobadda inoo furan waana ilaahay u soo noqonnaa daarudunyaa joognaa maanta fursad baan haysanaa innaku dadkii adduunyada ka baxay fursad ay ku soo noqdaan ma haystaan way socdeen marka qalbigaaga mar walba ilaahay ha ku weynaado wallah haddii cadamatullaahi qalbiga ay degta bay culimmadu leeyihiin biqadri khawfaka min allah yahaabu alkhalqu minka wa biqadri xubuka lilaahi caza wajalla yuxibuka alkhalqu hadba intaad ilaahay adigu aad ka cabsootid ayaa makhluuqun adiga kaa haybisanayaan hadba intaad adigu ilaahay aad jeclaatid ayaa makhluuquna ku jeclaanayaan hadba intaad ilaahay ka cabsootid kun lii kamaa uriidu akuunu laka kamaa turiid xadiis alquds ilaahay baa le sidaan raba aniga ii yeel saad rabtana anaa kuu seelay sideen rabnaa maanta innaku dadkoo dhan maxay rabaan cidhiidhiga inay ka baxaan bay rabaan faqriga inay ka baxaan bay rabaan dulliga inay ka baxaan bay rabaan masaa'ibta inay ka dhex baxaan bay rabaan diiqu sadriga inay ka baxaan bay rabaan waxalliya waxa aad kaga bixi lahayd cidhiidhiga adduunyada iyo cidhiidhiga aakhira waa maxay xadhigga ilaahay qabso waa tii saxaabigii rabciy ibnu caamir uu u sheegay maaragtaanay madaxayweyntii reer furus rustum allaahu ibtacaanaa ilaykum buu ku yidhi rustum qayd quwaat aljeysh buu ahaa rabciy ibnu caamir baa u yimid oo loo soo diro la yidhi orodoo la soo hadal hadday dagaal rabaanna diyaar baan u nahay hadday sulxi rabaanna diyaar baan u nahay rabciy ibnu caamir markuu u yimiday wuxuu yidhi annaku sidaad noo malaynaysaan ma nihin waxaana dad ilaahay adduunka u soo saaray baan nahay yaana soo saaray ilaahay linukhrija man shaaa min cibaadati alcibaad ilaa cibaadati rabbi alcibaad wa min diiqi addunya ilaa sicatiha wa min jawri aladyaani ilaa cadli alislaam buu ku yidhi ajiib waxaan adduunyada annagu iskamanu imane ummad la soo saaray baan nahay oo nebigeedii baa lala soo saaray calayhi salaatu wasalaam sida nebi maxamed caalamka loogu soo saaray inuu risaaladda uu gaadhsiiyo ayaa annagana haddaan nahay asxaabtiisii ilaahay baa na soo saaray buu ku yidhi linukhrija man shaa si aan uga saarna kii doona cibaadada ay caabudayaan addoommaha sidooda ah oon u saarna maaragtaana cibaadada ilaaha waaxidka waa arrinka maanta muslimiintu ay fahmi laayihiin wa min diiqi dunyaa ciriiriga adduunyada inaan ka saarna dadka la noo keenay buu yidhi annaka oon u saarna ilaa siicatiha nolosha adduunyada ballaceega iyo balladhkeega war gaaladu cidhiidhi bay ku nooshaa cidhiidhi bay ku jiraan muslimku markuu diinta dhab u qaatana sica ayuu ku jiraa sicatan fi risqi wa sicatan fi lmaali buu ku jiraa muminku sicuu ku jiraa sica muminku cidhiidhi ma galaayo nolosha waxa cidhiidhiga gelinaya waa maxay waa macsiyada nolosha waxa sicada gelinayana waa taacadda ilaahay saasuu ku yidhi saxaabigaas cidhiidhiga adduunyada inaan niga saarnaan u imanay annaku oo nii saara nolosha adduunyada balladhkeeda iyo waasicnimadeeda wa min jawri aladyaan adyaantan dulmiga iyo beenta iyo shirkiga iyo gaalnimada iyo khiyaanada ku dhisan inaan niga saarno ayaan adduunka u imanay buu yidhi annaku
oo nii saarno xagga cadaaladda islaamka jawr al-adyaan diinaha baadilka ku dhisan diinaha beenta ku dhisan diinaha dulmiga ku dhisan diinaha khiyaanada ku dhisan ayaan u imanay inaan niga dhex saarno oo nu saarno dadka maaragtay diinta cadaaladda ku dhisan islaamka marka Rustum bay aduma amiirkii ciidanka tahay may anu mid jamaacada muslimiinta kamid ah baan ahay buu yiri markaas waan soo tashan doonaa iska soco ninbuu u yeedhay markaa Rustum wuxuu ku yidhi 3 maalmood waxaan rabaa muslimiinta inaad u tagtaan oo la cuntid oo la seexatid oo eegtid dadna marka aad soo noqotood iga warkeentid sidii buu yeelay waa cuyuun saxaabadu ninka la soo diray jaasuuska way garteen laakiin may dilina way iska dhaafeen 3 maalmood ninka jaasuuska ah markuu muslimiintii la joogay ayuu ku soo noqday baa la yidhi boqorkii markaasuu ma waraaka ragga aad u tagteen ku diray bal ka waran buu ka yidhi markaasuu yidhi fursaanun bin nahaari wa ruhbaanun bil layl buu ku yidhi maalintiina waa fardo oo diinta ilaahay bay u halgamayaan oo inay diinta u dhintaan bay heegan u yihiin habeenkiina waa ruhbaan oo waa suufiyiin habeenkiina waa cubaad maba seexdaana gacmaha ilaahay hoos haystaan oo ilaahay bay baryayaan halka inagu khamriga aan cabaynana iyagu khamriga ma cabaan halka inagu ballanta aan baajinaynana iyagu ballanta ma baajiyaan halka inagu aan isdulmaynana iyagu cadaalad bay dhexdooda leeyihiin halka inagu aan kala sarreynana iyagu kala sarreyn male kooga faqiirka kooga qaniga kooga madaxa kooga mijaha ma kala taqaanid meel kaliya wax ku wada cunaan buu ka yidhi ballan haday qaadana ballanta kama baxaan beenna ma sheegaan khamrina ma cabaan sida nolosha adduunyada inagu aan u jecel lahayna inay aakhiro tagaan bayaku ay jecel yihiin buu yidhi عجيب لئن كنت صدقتني لا يملكن ما تحت قدمي هاتي هدي تهي كرون شيغايا صفاتك ادي شيغيسد اي مسلمين اد كو شيغيسد هدي مسلمين صفاتك اي ليهين كرسيغا يا خزائنت ذهبك هوستيدا تالا مالين اي قبسدان برغاس way qabsan doonaan buu ku yiri nolosha adduunyada raaxada adduunyada عزك الدنيا شرفت الدنيا هرمرك الدنيا خيرك الدنيا يا الله ولا ليال إيدتكم أنت أي رادين يا إلهي ملك لما قلن إلهي وحوق لي إن أمد إلهي أوصل نقطة بس إن إلهي الله صار نقطة وتوبوا إلى الله جميعا حكوا حقا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فلا أحبا دون إنسان ها صار نقطة هداد مسلمين هداد مؤمنين الليبان دون إنسان صار نقطة بيلاهين ليها جماعا ماها كلمة جمع كصور نقطة أمدها صار نقطة توبت كنت تفلحون فلاح إلهي بفلاح شاقي والإسلام ماذا إلهي بكل شاقين لقول ليبان أيوه حي على الصلاة حي على الفلاح بمؤذن كلية صلاة حق يدعوك عليه الليبان حق يدعوك عليها صلاة والليبان صلاة ولا تكذا لقول ليبان يا مهرد هذا وصلاة كقول دافت لقوم الليبان أيوه أمر كإلهي والله قاتل لقول ليبان قد أفلح هي الليبان تدك إيمان كلا الليبان يا صلاة دي بقول لي والليبان تأوك عليه ليبان با إلهي شاقي إلهي با الليبان شاقي مركا الليبان تو دين تيكو جرتا دين تأسنا الحمد لله إنك إلهي دين تأوي نسيه ونقول لي والله دادك ودنك كن نول بقلال كن أو جرب على الربا إلهي نكو شكرنا دل دين تودو مديسان تهي عقيدة تودو مديسان تهي مذهب كوغو مديسان يهي luqadoodu midaysan tahay ayaa ilaahay naga dhigay maanta innaka wadarkaasaan caalamka maanta waxa ka socda nicmada ilaahay na siiyay inaan ilaalshanaa naga doonaya oo hareeraha ka wada joogno oo caamadeena iyo culamadeena tujaarteena fuqaradeena odayadeena dhalinyaradeena dawladeena shacabkeena waxaan ku faanaynaa waa diin waxa la rabaa inaan diinteena ilaalshanaa naga rabaa
diintan saan ku ilaalinaynaa markaas waa in qalbigeena ku weynaataa diintu kow marka labaadna nolosheena diintu waa inay ka muuqataa oo mujtamaceena waa inay diintu ka muuqataa dhallinyaradeenna waa inay diintu ka muuqataa wiilasheena diin waa inay ka muuqataa gabdhaheena waa inay diini ka muuqataa tijaaraddeena diini waa inay ka muuqataa xukuumaddeena diini waa inay ka muuqataa mujtamac diiniya loo baahan yahay ummaddu inay isku bedisho laana zamankan maanta aan gallay waa zamankii diinta qof diin haysta unbaa badbaadiyo ogow qof diin haysta unbaa la jecel yahay zamankan waa zamankii diinta weeyaan nabigeennaa sii sheegay sal allahu alayh wasalam almutamassiku bidiinihi kalqaabid cala aljamra waa zaman ayaa imanaya buu nebigu yidhi sunnadayda ninka idhahda waan qabsanayaa uu la mid yahay nin dhamac haysta ha sii dayna xajiso waayo fasaadkaa badanaya sharkaa badanaya haddana sunnaha noolaanaya waa ka nebigu sheegaya ka sunnaha qabsada zamankaas waxa uu la mid yahay nin dhamaxaya buu nebigu yidhi dhamac ma hayn karaysid laakiin xajiso lilcaamili fiihinna ajru 50 rajulan ninka diinta sunnada markaa qabsada 50 nin ajarkood buu nebigu yidhi ayuu qaadanayaa saxaabi baa sare kacoo yidhi man 50 annaka mise waa 50 iyaka ah maya waa 50 ininkaa buu rasuulku ku yidhi 50 ininka fii sunan tirmidi 50 asxaabtii nebi maxamed ajarkoodii buu qaadan maanta ninka zamanka diinta qabsada natamassak diinteennan qabsanayna insha allah dhahda dhallinyaradeenna culimmadeenna caamadeenna jazaakum allahu khayr allah inaga jazaaysiiyo saad u soo qaabisheen kulanka caawa culimmadu ay nagu marti qaadeen anagu arday baan nahay culimo ma nihin masaajidkan waa markasulcilmi ummadoo dhan baa ka faa'iidaysata cilmiga halka culimmadu ay ka bixiyaan runtii meel kastoo ay joogaan dadka af soomaaliga ku hadla masaa-isha diiniga sheekheena jazaahu allahu khayr uu halkaa ka bixinayo caalamkao dhan baa ka faa'iidaysta maanta marka annagu inaan hortooda ku hadalno ma ahayn laakiin haddana waa alab waa nasiixo weeyaan annagu caamadaan wacdinaa inta badan tujaartu waa laba qaybood qolo waxaa jirta jumladlayaal oo badaacadda jumlad bay ku keenaan iyo qolo waxaa jirta tafaariiqlayaala soo maaha bagaashlayaasha dee haddee labadaa may kala maarmayaan ma kala maarmaan annagu markaa tafaariiqlayaal baa nahay xadiiska culimmada aan ka maqalno ayaan maalinba tuulo gaadhsiinaa caamadana waxaan leenahay caamoy culimmada garab han siino seen garab culimmada u siinaynaa wixii culimmadeena aan ka maqalno ummadda han gaadhsiino طفيل بن عمرو الدوسي انتي نبينا او كم مغلي ايو يري تولكي انا غادسيني يدر بوكيدي تولكي اني امرؤ لمطاع في قومي نين وحانا ددكي سؤاد دغيستان نبي الله وشاعره ادر وادر النبي صلى الله عليه وسلم marka uu soo noqdo uu calaamad la igu gartay ilaahay weydii markaas uu nabigu ilaahay u bariyay wajigiisa intaas ay iftiimaysay baa la yiri markuu dhaxdaas sii marayo ayuu ducaystay wuxuu yiri yaa rabbi haddaan maalin ku hagaago meeshaas iyadoo way cadaanaysaa marka waxay ii malaynayaan diintoodii markaan ka baxay inay barsigaga dhacday u malaynayaan ilaahu nuurka halkan iga qaado jeedalka faraskayga la dhacay iftiinka igu bedel buu yiri والله ugu badilay waa nin shalay islaamay ayaa ducadiisa la aqbalaya inakana ducadeena ka warama maanta ya nin shalay islaama karaamaadka durba ka daahiraysa iyo nusradii inaka diinta islaamka ku dhalanayna ma aaminsanin ducadeena la aqbalaya maanta uu tagay waxa ninkaas tolkii karaamo ula tagay karaamo leenabiga karaamo weydiistay karaamadiina waa la siiyay waxa la yiri in yar baa ka soo rumaysay intooda badan way diideen markaa buu ku soo noqday nabiga sallallahu alayhi wasallam markaa buu nabiga u yimid uu ku yiri reedows ilaahay iyo rasuulkiisa way caasiyeen habaar buu nabi allah ilaahay habaabiye markaa buu nabigu qiblada u jeestay gacmuhu kor u taagay saxaabadu waxay u maleeyeen nabigu inuu habaartamayo waxay yiraahdeen reedows way halaagsameen maanta markaa buu nabigu ilaahu reedows soo hadee qalbigoogana adiga hayo ilaahu diinta jeclaysi buu yiri مو هبار مسوي دعي دعاء هوريس طفيل بن عمرو الدوسي بن نبي قوي يا ري هذيك أنا وحى وكور طفيلو مرقاد مدة خير قادو شيء يسد
dhibri buu ka yidhi oo dadka isjeclaysiiya farxin dadka nahjigii dacwadana isagii baa laga saxay waana u duceeyay nebigu labadaa buu la noqday laba sifo cajiiba dacwad ku salaysan dabeecad wanaagsan iyo duco labadiiba kula noqday qoomkiisa can bakrati abihim reedows oo abaa hurayrana uu dhex socdo ayuu nebiga ugu keenay iyagoo soo wada islaamay madiinat almunawara karaamadii kuma islaamin waxay ku islaameen akhlaaqdii iyo ducadii intii nebiga uu ka maqlayna ummadiisa u gaadhsiiyey innagana maanta intayna raggeena halkaa fadhiya guryahan ku noqonayno waxaa laga yaabaa hadday 7 qof aqalka ku soo yeynaysa habeenkii in ama 2 ay ka tukato ama 3 ka tukato taariiku salaaqal u dhex fadhiyana ka warrama marka dacwadda ma aha mas'uuliyad culimada kaliya saaran hamoodina ummadan ilaahay ba shaqada diinta ugu talagalay inay ka shaqayso إن شاء الله علمك علماء أن كان قادنو إن جملة كذا قادنو إنه تفاريغ لنا قضايا وديار ومدة قارسيو يا ما شاء الله الله ينبارك يا جزاكم الله خير سلام نوصل دويسنا الله نوصل دويو كل جينا جنة الفردوس الله ينقو كل ميو وحق أنكو هذا الله ما ركتنا وحي أنا صيمنا إلهي بأن وفجيي وحي أنقفنا وقف حقيقة كيمدي إلهي بأن دمدا فويدي سننا وصلى الله على سيدنا محمد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا أمنك الله إنه زياديو إيمانك الله إنه أتكيو dad badan oo walaalaheena ducadoon xanuunsan caafimaad sariic Allah siiyo qof walba ka kurbaysan kurbada Allah ka qaado muslimiintana meel kasta adduunka joogan muwaafiqiin midnimana Allah siiyo sallallahu alayhi wa sallam Muhammad